Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow Sokosid Academy. Maanta waxaan bilaabeynaa Excel buuggeeni labaad aan ku baraneynay Microsoft Office. Excelku waxaa lagu talagalay sidiisaba in wax lagu xisaabiyo dhanka xisaabaadka tirada haddii aan lahayd kambaniyada yaryar, hadduu ahaan lahaa iskuulada, dhammaan darajooyinka ardayda ay keenaan, haddii aad ku dhihi lahayd hadduu ardayga baasay, dhacay ama mid normal oo ardayga, dhammaan waxaa loo isticmaalaa buugga loo yaqaano ama softwareka loo yaqaano applicationkiisa Excel. Marka ugu horeyso waxaan soo kacsanayaa Excel, waxaan kusoo gelin karayaa 3 qaybood ilaa 2 qaybood. Qaybta koowaad waxay tahay meeshaan banaan inaad ku dhahdo right click, kadibna aad ka doorato halkaasi new, kadibna aad ka doorato Microsoft Excel worksheet. Kadib wuxuu kuu soo korayaa desktopka, kadibna waxaad ku qoranaysaa magacaad ugu talagashay. Sokosid ayaan ku qoranayaa aniga Academy. Waa midka koowaad sidaan kusoo kicin lahaa. Kadibna waxaan leeyahay haddana enter kale ayaan leeyahay. Waxay ii soo kacayo Excelkeyga. Shaashadani waa shaashada ugu horeysa oo markaad softwareka aad soo kacsato aad arki lahayd. Taasi waa dariiqad koowaad aad kusoo kacsan karto Excelka. Waxaan rabaa dariiqada labaad aad kusoo kicin karto Excelka. Qaybtan ugu hooseysa ay ku qoran tahay tab here to search ayaa waxaan ku qorayaa click inta ku siiso Excel ayaan ku qorayaa. Kadibna waxaa ii soo baxayo Microsoft Excel. Kadibna waxaan ku leeyahay enter. Waxay ii soo baxay buugga koowaad ama magaca uu qaadanaya wuxuu yahay book 1 oo Excel ah. Ka laabanaya qayb saddexaad waxay tahay window key plus R in isla qabato. Kadibna aad ku qorto halkaasi Excel, kadibna aad dhahdo enter. Saddexda qaabood waa saddexda qaab aad Excelka aad kusoo kacsan karto. Waxaan soo kacsanayaa marka midka desktopka noo saaran anaga oo ah Sokosid Academy nagu qoran tahay. Marka ugu horeyso horta waxaan rabaa dhammaani inaan shaashadani aan kala qaybiyo si aad u kala fahantaan mid walba magaca uu leeyahay iyo shaqada uu qabto. Qaybtan ee ugu horeyso oo intaa ah waxaa loo yaqaanaa quick access toolbar. Qaybtaas waxaa loo yaqaanaa quick access toolbar ayaa loo yaqaanaa. Qaybtan halkaana waxaa loo yaqaanaa title documentiga magaciisa ayaa loo yaqaanaa qaybtaana. Waxaa ku xiga qaybtani ee failka iyo home tabki ku qoran yihiin ilaa halkaasi waxaa loo yaqaanaa tabs. Waxaa loo yaqaanaa tabs ayaa loo yaqaanaa. Intaan tabskaan gudbin marka sidaan kusoo aragnay buuggeeni kan ka horeeyay Word, halkaasi ilaa halkaan oo ku dhamaado waxaa loo yaqaanaa ribbon. Ribbonka wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood. Tabs sidaas la mid wuxuu ka kooban yahay groups, wuxuu kaloo ka kooban yahay commands kuwa amara la siiyo. Tabs waxaa la yiraahdaa qaybtan aad ujeedid home tab, file tab, insert tab, waxaa loo yaqaanaa tabs. Waxaa ku saaran groups, waxaa loo yaqaanaa qaybtan kala go'an. Intani waa group, waxaa la yiraahdaa clipboard group ayaa loo yaqaanaa. Sidaas la mid intani waa group, waxaa loo yaqaanaa font group. Qaybtan waa group, waxaa loo yaqaanaa alignment group. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa number group, style group, sales group iyo editing group. Commands waa inta ku jiro 5 conditional formatting command, format as a table command, clipboard command and font command, copy command, cut command. waxaas oo dhan waa command. Waxaas oo dhan waxaa loo yaqaanaa command. Waxaa ku soo hartay qaybtani ABCD ay ku qoran tahay waxaa loo yaqaanaa column. Column waa istaaga. Column waxaa loo yaqaanaa istaaga ama jooga ee waxaa loo yaqaanaa column. Qaybtan 1 2 3 ay ku qoran tahay waxaa loo yaqaanaa row. Kuwa chiefka waxaa loo yaqaanaa row ayaa loo yaqaanaa iyagana. Sidaas la mid ah waxaa hoos ku jiro Excelka markaad soo kacsato wuxuu leeyahay 3 sheet ayuu ku imaanayaa by default ah. Hadduu uu yahay Microsoft-ga isticmaalaysa 2010, hadduu 2010 yahay wuxuu ku imaanayaa kusoo kacayaa 3. hadduu mid ka dambeeya uu yahayna later version wuxuu kusoo kacayaa 1 xabo keliya, inta kalena adiga kusoo darsanayo. Sidaas la mid ah wuxuu leeyahay 3 group oo 3 shay ah, normal view iyo page layout iyo title-ka 3 group. Tan waxaa loo yaqaanaa zoom control. waxaa loo yaqaanaa zoom control.
intaas waxaan ku qaadanaynaa markaa previewga shaashadda aan isticmaalayn. column waxaa la yiraahdaa qaybtan saan u dheer, rowna waxaa la yiraahdaa halkaasi. marka column iyo row dhexdooda waxaa ka samaysmo walax la yiraahdo cell. column iyo column waxaa loo yaqaanaa istaaga ama jooga, rowna waxaa loo yaqaanaa kani oo ah jiifka. column iyo row dhexdooda marka waxaa ka samaysma walax la yiraahdo cell. tusaale fiiri, halkaani waa column, kana waa row. halkaa god ay meesha iska dhaafayaan ayaa waxaa loo yaqaanaa cell ayaa loo yaqaanaa. cell ayaa loo yaqaanaa. waayahay excelka markaa soo kacso imsa cell ayaa anigu haystaa oo waxaan ku qori karaa. excelku wax ku qori kartaa ilaa aad ka daasho, sababtoo ah mar walba aad god wax ku qorto ama aad kusoo darto waa sii badanayaan. tusaale maanta waxaan rabnaa marka xisaabta u dambeysa inaan soo saarno. xisaabta u dambeysa inaad soo saarto waxaa ka horeyso qaybtan columnka ah inaan number ka dhigo. waxaan sameynayaa marka koowaad fail ayaan ku dhufanayaa, waxaan ka dooranayaa option markaan ka doorto formula ayaan ka dooranayaa, kadibna waxaa jeega saarayaa R1 iyo C1, kadibna okay ayaan leeyahay. waxaa aragtaa qaybta hadda ABC daheed maanta waxay noqotay number. waxaan taabanayaa marka controlka, waxaa la taabanayaa left right arrow. controlka markaa la taabato right arrow wuxuu ku geynayaa columnka meeshuu ku dhamaado. columnka wuxuu ku dhamaadaa 16,384 oo cell ah. rowga halkuu ku dhamaadaa marka, rowga halkuu ku dhamaado waxaan ku ogaanayaa controlka ayaan qabanayaa, falaarta hoose aadaysa ayaan taabanayaa, wuxuu i keenayaa 1,048,576. waxaan rabaa marka xisaabta inta cell aan haysto anigu. waxaan sameynayaa halkan ayaan imaanayaa, waxaan qoranayaa xisaabta aan anigu haysto oo columnka ah. xisaabtani waa xisaabta columnka ah. halkan hoos waxaan ku qoranayaa 1,048,576 waa xisaabta rowga ah. waxaan rabaa marka labadan xisaabood inaad isku dhufto multiple aad ku sameyso si kugu soo baxdo inta cell aad haysato. marka ugu horeysa waxaa qoraysaa waayahay, waxaan imaanayaa halkaasi, kadib waxaan leeyahay is equal ku dhufa xisaabta halkaani, kadibna waxaad ku dhufanaysaa xisaabtan halkan kugu qoran ee rowga ah. xisaabta halkaa kugu qoran ee rowga ah ayaad ku dhufanaysaa. kadib waxaan leeyahay marka xisaabta waa tan 1,048,576, kadibna okay click ayaan xisaabta ku siinayaa. waxaan isticmaalayaa calaamadan comma styleka ah. waxaa ii soo baxayso 17,179,000,000 oo waxaan haystaa oo cell ah oo god ah oo aniga aan wax ku qoran karaayo. waxaan haystaa oo aniga waxaan ku qoran karaayo. haddaad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar una share garay asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.